Asad Xaajiye oo ahaa qofka ugu subscriberska badan YouTuberada Soomaalida ayaa haddana waxa uu noqday qofka koowaad ee ugu horeeya ee Soomaali ah ee haysta channel YouTube kan ugu subscriberska badan maadaama awal uu jiray hal channel oo ka sarreeya Asad Xaajiye kaas oo ah Waqal Studio oo ah YouTube la soo dhigo dhanka heesaha balse hadda Asad Xaajiye wuu ka sare maray YouTube kaas xilligaana uu yahay qofka Soomaali ku hadla ee ugu subscribe-ka badan dhanka YouTube balse hadda haddii aad raadisid labada channel ee Waqal Studio iyo Asad Xaajiye labaduba waxa ay marayaan meel isku mid ah subscribe-ta balse maadaama ay hadda marayaan meel isku mid ah oo labadoodu ay wada siman yihiin maalmaha iyo bilaha soo socda waxaa la filayaa si toos ah inuu Asad Xaajiye u dhaafi doono Waqal Studio uuna noqon doono qofka ugu horeeya ee Soomaali ah ama ku hadla luqadda Soomaaliga ee dhanka YouTube ugu sareeya. No word. I love you guys. تحت قريني سيدو لعدي ترسدي ويدو لعدي قرب قولي سنيدو لعدي ترارك وعبودي يدو لعدي توقي سوديرانو دو لعدي هذي قولي balse markan haddii aan fiirino labada channel yaa soo horeeyay yaa fiidiyoyaasha ugu badan soo geliyay yaa waqti dheer ku jira dhanka YouTube yaase xilligan uu cadcad yahay ama uu eg qofka hormari doona ama channelkiisu uu noqon doona midka ka sarreeya qof walba haddii aan ku hormarno Asad Xaajiye YouTube-kiisa waxa uu furtay sanadii 2019kii taas oo ka dhigan inuu muuqaalkiisii ugu horeeyay uu soo dhigay muddo 4 sano ka hor ah halka channelka Waqal Studio la furay sanadii 2012 iyadoona ka dhigan tahay muuqaalkiisii ugu horeeyay in la soo geliyay muddo 12 sano ka hor ah haddii aan fiirino muuqaalada ugu badan yaa soo geliyay Asad Xaajiye muddada 4 sano ee ciwaankiisa uu furan yahay waxa uu soo geliyay in ka badan 1500 oo fiidiyo dhanka kale Waqal Studio oo furan muddo 12 sano ah waxa la soo geliyay in ka badan 2200 oo fiidiyo taas oo tirada guud ka dhigaysa in ay u dhaxayso in ka badan 1000 oo fiidiyo taas oo fiidiyoyaasha dhanka fiidiyoyaasha uu yar yahay Asad Xaajiye iyo sidoo kale inta sano ay furan yihiin channeladan oo kala ah channelka Waqal Studio uu furan yahay in ka badan 12 sano halka channelka Asad Xaajiye uu furan yahay in ka yar 4 sano balse adiga daawada haddii aan su'aal ku weydiiyo yaad isleedahay sanadaha iyo bilaha iyo maalmaha soo socda waa uu horumari doonaa oo waxa uu noqon doonaa qofka Soomaaliya ugu sareeya dhanka YouTube waxaa halkan lagu kala saari doonaa Ciida iyo AMK iyo welibana Imraan iyo Ibraka Darba afartan qof ayaa maanta miiskan lagu kala xukumi doonaa mashquulkiyo mihnadoodii meelgeeyaan markay waayaan murugiyo ciil aha mutaystaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مقدم مع صاحبكم عبد الله. صاحبكم إيه قدام صاحبكم عبد الله. نعم. على برنامج أسد حاجيو. على برنامج أسد حاجيو. تفضلوا معنا. أنا استحي منكم. إيه.